qayladina maxay ku ekaanaysaa qayladana waxay ku ekaanaysaa dareenkan inaan muujino kaliya anaga dareen leenahay dananka leenahay dalka doorashada inaan qayb ka noqono aan rabnaa hadii bini aadanka waxa la yiraahdo xoolahan ureys ku afgartaan bini aadankan hadal inaan hadalno waa shay dabiici ah oo muujino dareenkeena iyo waxaan ka qabno doorashada aan ka qabno kaliya anaga waxa leenahay madaxweynaha kalsooniha isgaliyo anaga dhihimayna dadka guddiga doorashada Zimbabwe iyo Mareykanka laga keeno ma dhawayno waxa leenahay waa dad Soomaaliyeed laakiin waxa rabna inay xun yihiin inay fiican yihiin ma baha issue-ga dadkan dhinacay ku xisaaban yihiin marka hadda waxa isweydiin leh haddii guddiga doorashada nabadgudya haddii dadka xildhibaanada hadda loo rabo xamar waxa ka socdo waa wada ognahay in nabadgudya la geynayo laga soo sameeynayo vetting wax la yiraahdo oo la soo jeegareynayo inay daacadnimadooda damiin xildhibaanaha raba odaya wadanaysa nabadgudya tagaysa lacagtii qadar laga keenay meesha taallaa xildhibaanka lagu soo saaray dadkii ka mid noqonayay tartanka ama sharaxnimada galaya inay meesha laga soo wada xaadirinaya hadda waxa fiican nabadgudya in xisbi furato oo la yiraahdo xisbiga nabadgudya qaranka Soomaaliyeed in la yiraahdo oo tartanka qayb galaya inuu jiro anaga xataa hadda waxaan shaki qabnaa xataa cid uu shaqeynaa kan hadda madaxweynaha sheeganaya meesha fadhiya xataa inuu luusayan aaminsanahay oo ninka cid uu shaqeynaya la aqooninba sababtoo meeshii waxa ka furan xisbi nabadgudya oo wax walba asaga lagu aruurinayo waxa u roon waqti ayuu ku socdaa madaxweynaha farmaajo mandate-kiisa 2 bilood ka dhiman November aan ku jirnaa December iyo Janaayo u dhiman waqtigiisu iska luminin wiilka nabadgudya u joogo waqtigiisu iska luminin doorasho aan lagu qanacsanayn laga qaban maayo Muqdisho taasana ku balan qaada waa inaan ku qanacsanahay siyaasiyiin nahay deegaanka ka soo jeednaa Soomaaliya u tartamayna inaan xukunaan rabnaa Puntland iyo Jubbaland wax noocaan inay yeelaan sax ma habade kuwa yeelana waa qaldan yihiin anaga waxaan aaminsanahay galmudug in galmudug gudaheeda looga shaqeeyo ku fiican tahay laakiin meesha ay galmudug markii horena beeshay haddana beelaysa waxa waaye markii ajende doorashada federaalka loogu shaqeeyo heer marka hadda anaga waxaan joognaa dadka ayna dhahaan war dulqaadkiina nimanka say u arkaan waa nacasnimadaasna waxay keenaysaa qaranka Soomaaliya ku dumo saas daraadeed waxa loo baahan yahay dadkan in la tuso waxaan ina anaga leenahay ayaga aysan lahayn ana ka cishano waxaana marka ku heshiinay nimankan dalka intay naga dumi lahaayeen inaan ka cishano hadda ka hadlamayno kursi ka hadlamayno doorasho xildhibaanana laga hadlaynin madaxweynaha laga hadlaynin wasiirana laga hadlaynin kursiga laga hadlaynin xilaan laga hadlaynin hadda waxa laga hadlaa waa dignity waa sharaf iyo karaamad waxa kale laga hadlayaa in la badbaadiyo dadka Soomaaliyeed horta xafiis ra'iisul wasaare ani ma aqaan meel ku yahay hadeertan iyo shaqadu qabto runa ku sheega moogta xafiis ra'iisul wasaare dalka ma jiro hadeertan taqriiban